marka hadda naftigeeda doodda socota dood sharci ah maaha hadda marka waxay ka shaqeynayaan waxay ku dambeynaysaa inaysan sharci ahayn bacdama habraaci ay ku bilaabeen uu ku bilowday si khaldan oo fowda ah dastuurkan mashruuc uu ahaan jiray malaayiin doolara ku bixi jirtay mar kasta waa la garanayaa dastuurkan wuxuu ahay dastuur Soomaaliyeed dhadhankiisa ma lahayn laana dibadda looga soo shaqeey jiray naybasha la qaaday dastuurkii xagga looga soo doodaya maxaan ku raadayay Kigali la aaday Istanbul la aaday maxaan ku raadayay xagga la tagay inta la tagaa la ahay lacag Soomaaliyeed laguma sameeyeen baasadaas lagu sameeyay oo dhan baasada ajnabi oo bixiyay ahayd maxay ahayd xigmadii carabiga ahayd ma la yamliku quutahu la yamliku qaraarahu qofkan saxankiisa bariiska asaga aanan awoodin qaraarkiisana ma awood go'aankiisana ma awoodo soo dastuurkii annaga Soomaali ah waaye annagaana laga rabaa inaan go'aan ka gaarno laakiin meeshan go'aan kuga gaareynay baabuurka aan raacaynay nima noo keenay badarka aan cunaynana nima nasiiyay warkaaga dhageysameynay hore adiga banaanka u baxaan dhihi karnaa waad garan kartaan koo waxaan go'aan ku gaarnay project inuu noqonin oo lacag dibadda laga keenay dastuurka aan lagu maalgelinin horta koo qodobka labaad oo gaarnay waxay dastuurka inaanan dibadda looga soo tashanin xuduudaha Soomaaliya gudahooda maalin walba meesha artay aad xamar joog Kismaayo aad baydhaba aad garow aad meeshii ku muuqata adiga marka dadka gacanta ku hayo meeshii laakiin xuduudaha Soomaaliya lagama dhaxbaxaayo laakiin qof markuu meel inta soo istaagay yiraahdo looma dhama maanan aqoon Soomaali hadaan nahay iyo meeshayna dhigtay iyo meesha aan joognay iyo dib ha loo dhigo xagee loo ordaya xagee loo wada ha loo kaadiyo dib ha loo dhigo ya inta dib ugu dhiganayna yaa sugeynaa ummada kale ma xiddigta Mars inuu ka soo guuraa noo soo degayo dadkeenii dadka ugu macna badnaay oo aan isugu roonaanay gacanta ku haye yaa kaloon u direena dastuurku intaasoo saacadood iyo intaasoo maalmoodna baarlamaanku dhex yaala oo ka doodaya dadka Soomaaliyeedna waa ayagoo fadhiyana waa la dhaxdhiga waa ka doodeen ayagoo fog oo meelo fog jiro dal iyo dibadna waa ka doodeen waa la soo dhaxdhigay walina in laga sii doodo oo la sii ra'yi lagu sii beeriyo waxaana waa sheegay munazzal ma aha ilaahay agtiisa kama imanin waa dadaa sameeyay wax kasta oo dad sameeyana cilada iyo ceebaal iyo nusqaan ay leeyihiin laakiin waxaan rabnaa qof kasta oo dastuurkaas ra'yi ka dhiibanaysa waa xor waa ka dhiiban kartaa waana inay ka dhiibataa sida loogu talagalay uga dhiiban baarlamaanka doodiisa oo doodaya in badan maalmaha oo doodayo dad aan baarlamaanka ka tirsanayna yaa la marti qaadaa oo baarlamaanka yimaado oo soo dhex fadhiista ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees